Assalaamu calaykum. Waxaan idiin soo gudbinayaa mowduuc ku saabsan sidaad uga hortagi lahayd guuldarooyinka soo wajahday noloshaada marar badan. Intaan u gudagelin mowduuceena maanta, fadlan daawade taabo batoonka guduudan si aad u rukumato janaalka. Sidoo kale waxaad taabataa kambaleelka si aad ugu noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada mowduuca aan soo gelino markasta. Ku soo dhawaada mowduuceena maanta. qof kasta oo inaga mid ah wuxuu u baahan yahay qaab uu kaga hortago guuldarada noloshiisa soo wajahda. Laakiin nasiib darro, qof kasta wuxuu ku mashquulaa siduu u guuleysan lahaa, laakiin aanu ka fakirin siduu uga hortagi lahaa guuldarada. Waxaan maanta idinkugu soo jeedin doonaa 8 qodbood aad uga hortagi kartid guuldarooyinka soo wajahda noloshaada marar badan. Qodobka koowaad: baro qaladaadkaaga. waxyaabaha ugu muhiimsan ee guuldarada uga gudbi kartaa waa inaad barato qaladaadkaaga, isla markaana aanad mar labaad sameyn qalad aad hore u soo sameysay. Markasta waxaad ogaataa qaladkaaga oo aad barataa, oo aadan ku sii socon inay ka hortagi karto guuldarooyinka kugu soo wajahan. Qodobka labaad: naftaada si fiican u deji. Xoogaa naftaada deji, qaado neef kugu filan, isla markaana ka fakir xaaladda markaad aad ku sugan tahay. Albaab waliba wuu kuu furan yahay. Ha isciilgaabin oo ha oran waxay u dhaceen sida tan, laakiin Ilaahay tala saaro oo markasta adoo degan ka fakir waxyaabaha aad sameyn lahayd. Qodobka saddexaad: dooro jiha cusub. Guuldaradu waa calaamad muujinaysa in aad ku socoto qalad, isla markaana aad rabto inaad raacdo qaladka saxa. Qodobka afaraad: maamul maskaxdaada. Ma tahay qof ka fakira marka ay wax xun dhacaan? Waxaad ka fikirtaa maalintii iyo habeenkii oo dhan, mana joojin kartid. Haddaba maamul maskaxdaada, quraan badan aqriso si maskaxdaada ay u degto markasta. Qodobka shanaad: ha ka fakirin waxa keenay guuldarada. Guuldaro kasta waa fursad ay kugu kordhinayso guul inaad gaarto ama aad garato qaladkii kugu soo dhacay. Guuldarada kama gudbaysid ilaa aad garato qaladkaaga, aad qaadato waqti aad ku fikirto misna aad u ogaato sababta rasmiga ah ee keenta guuldarada. Qodobka lixaad: ha ogolaan dadka kale inay ku hoos dhigaan. macnaha ha u ogolaa dadka kale inay hoos ku dhigaan, ay ku yiraahdaan adiga waxaa tahay kii qaladka galay, ma guuleysan kartid, noloshaada ma bedeli kartid. Laakiin markasta waxaad ogaataa in dadkaasi ay beri gacmaha ku soo horsanayaan, ay ku dhahayaan warniyahow waxay la qabo. markasta oo qofku niyad jabiyo, isku day inaad ka qaadid dhiiranaan oo aad noloshaada si sax ah aad wax uga bedesho. Qodobka toddobaad: iibso buug yar oo xasuus qor ah. Maalin walba ku qor 3 shay oo aad ku gaadhay. Buugga yar ku magacaw saaxiibka guusha, oo maalintiiba hal mar aqri si aad uga hortagto wadada guuldarada. Qodobka 8: badi ducada. cibaadada Allah subxaanahu wa ta'ala markasta tala saaro, xasuuso inuu Eebbe ku garab taagan yahay meel kasta iyo xaalad kasta oo aad ku sugan tahay. ogsoonow inuu Allah awood kuu siiyey markasta in aad ku mahadnaqdo. aqbal in aad tahay qof uu Allah sharfay. guushu ku soo dhawaan mayso oo roog cas kuma dhiisayso ilaa aad adigu samayso nolol wax ka bedel leh. intaas ayaa ku soo koobaya mowduuceena maanta.